أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa janalka Xareed Media. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee Xareed Media oo habeenada Arbacada iyo Jimcaha soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media. أحب الرياضة والملعب ومهما لعبت فلن أتعب. إذا ما ربحت فشيء جميل، إذا ما خسرت فلن أغضب. daawadayaal waa habeenimo Jimco ay soo galayso 30 bisha Janaayo sanadan 2020. qodobada caawa barnaamijka ciyaaraha Xareed Media aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah Liverpool oo rikoor cajiib ah dhigtay xilli ay garaaceen West Ham United iyo Leeds oo 19 dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka Premier League. sidoo kale waxaad daawan doontaan Manchester City oo iska xaadirisay finaalka Carabao Cup inkastoo ay guuldaro ka soo gaartay Manchester United maatijo oo gool iyo casaan isku darsaday. sidoo kale waxaad daawan doontaan daawadayaal kulamada kale ee laga ciyaaray Carabao Cup natiijooyinkiisana waan idin soo gudbin doonaa. sidoo kale Copa del Rey kulamo ayaa laga ciyaaray natiijooyinka ka soo baxeen ayaynu idin soo gudbin doonaa daawadayaal. sidoo kale horyaalka Serie A waxaa laga ciyaaray Copa Italia kulamada laga ciyaaray natiijooyinkiisana waa daawan doontaa. si lamid ah Copa de France kulamada laga ciyaarayna isna waynu eegi doonaa daawadayaal. sidoo kale daawadayaal waxaynu eegi doonaa horyaalka Germany koobka laga ciyaaro ee DFB Bokolka natiijooyinka ka soo baxay kuwa naadiyaasha waaweynka ayaynu si gaar ah u eegi doonaa. qodobadaas ayaynu falaqeyn doonaa iyo kulamadaasi barnaamijka ciyaaraha channelka Xareed Media ayaad ka daawanaysaan. waa tahay daawadayaal markaana waxaynu gudagalaynaa ka sheekeynta kulankii u dhaxeeyay Manchester United iyo Manchester City. Manchester City ayaa iska xaadirisay finaalka koobka Carabao Cup inkastoo ay guuldaro ka soo gaadhay Manchester United. United ayaa gool iyo waliba casaan isku darsaday. Manchester City ayaa iska xaadirisay finaalka koobka Carabao Cup inkastoo ay guuldaro gooli waxba ka soo gaartay Manchester United lugtii labaad ee semifinalka. laakiin maadaama ay City 3 gool iyo gool ku soo badiyeen lugtii hore ee Old Trafford, Man City ayaa finaalka ugu soo baxday goolal wadareed 3-2 ah. goolka qura ee Manchester United ay ku badisay kulankii xalay waxaa dhaliyay Nemanja Matic kaasoo casaan qaatay qaybtii labaad, waana xidigii ugu horeeyay ee sidaas sameeyay ee Man United tan iyo Wayne Rooney oo gool dhalin iyo casaan isku darsaday kulan ay ka hor yimaadeen West Ham United sanadkii 2014. Manchester City oo difaacanaysa koobka Carabao Cup waxay finaalka oo dhacaya 1 bisha Maarso isku arki doonaan kooxda Aston Villa oo iyagana ka soo talaabsaday habeen hore Leicester City. inkastoo Man City ay maamuleysay ciyaarta, haddana waxaa nasiinada lagu kala aaday 1 gool oo ay United heshay waliba ahaa halkii isku day ee saxda ahaa ee ay United ku sameeyeen goosha Man City. City bilowgii ayay heleen fursado xaqiiqo ah balse waxaa si cajiib ah u badbaadinayay gool haye De Gea kaasi oo daqiiqadii 7 laba fursad xaqiiqo ah qaab adag kaga badbaadiyay Riyad Mahrez iyo waliba Kun Aguero. City iyaga ayaa ku badnaa kubadda haysashada waliba mar walba gaarayay aaga goosha United kuwaasi oo dhankooda kubadaha rogaal celiska ah ku tiirsanaa balse durba waa laga soo celinayay. marka laga yimaado fursadaha ay City qasaarinayeen, United inta badan ma aysan soo gaareen aaga City kuwaasi oo ugu dambeyn ay gool ku heleen, waxaana gool gantaal ah ka dhaliyay Matic daqiiqadii 35. goolkaas ayaa yimid kadib free kick United laadeen ayay City madaxa ku soo celiyeen, waxaana bannaan cidlo ah ka dhaliyay Matic. goolkaas waxaa ka muuqday
qalad dhanka daafaca ah oo qaab qaldan ay u istaageen City mana jirin ilaalo laga hayay Matic waxaana lagu nastay halkaas gool guud ahaan City iyaga ayaa kubadda haystay waxa ayna gaarsiiyeen heer dhan 64% waxaana jirtay gool City laga diiday daqiiqadii 41 sababtoo ah waxaa lagu tilmaamay offside waxaana goolkaas dhaliyay Raheem Sterling soo laabashadii qaybta labaad United qaab wacan ayay ku bilowdeen ciyaarta waliba kubadda cagtooda waa ku daahaysay xilli daqiiqadii 57 fursad xaqiiq ah uu ka qasaariyay Raheem Sterling xilli xitaa uu u gooyay goolhayaadigeeya ninkii Sterling aha goolhayaadigeey inuu u gooyay xitaa goosh xataa uu dhalay iyadoo firaaqa ah ninkaas muxuu qasaarahay ebertadka ooga dhig ninkaas goolal uu ka qasaarna ku dhan markuu 10 fursad ka qasaariyo fursad ku itoonad ku dhalina Raheem qasaaro United soo laabashada waxa ay horey u soo geliyeenba Daniel James oo loo saaray Greenwood waxaana xusid mudan in hanaanka ciyaarta ay ahayd mid u furneed labada koox United bedelkooda labaad waxa ay sameeyeen daqiiqadii 65aad iyaga oo soo geliyay Andres Pereira oo loo saaray Lingard halka Man City iyagana bedelkooda koowaad ay soo geliyeen David Silva oo daqiiqadii 68aad loo saaray Riyad Mahrez Man City daqiiqadii 73aad hadiyad qaali ah ay iska diideen kadib markii Maguire uu kubad ku horqalday David Silva balse City oo shabaqa uu u banaanaa waa ay qasaariyeen xilli xalka sidaas ahaa Man United waxaa kaarka cas ka qaatay Matic daqiiqadii 76aad xilli kan digniinta uu qaatay daqiiqadii 51aad waxa ayna United kadib dhacdadaas soo geliyeen Juan Mata oo loo saaray Lukashow Man City dhamaadkii waa ay cadaadiyeen United xilli gool raadis ay ahaayeen waxaana jiray gool faar ay ka diiday Aguero daqiiqadii 84aad waxaana xusad mudan in isku dayadii United ay yaraadeen kadib kaarkii casaanka ahaa waxay ciyaarta ku dhamaatay gooli waxba oo ay Man United ku badisay laakiin goolal 3-2 ah waxa ku soo baxay Manchester City oo finalka la ciyaari doonta Aston Villa wili waxaynu ku raad joognaa ka sheekeynta koobka lagu magacaabo Carabao Cup-ka hadii aynu eegno natiijooyinka ka soo baxay kulamadii semifinalka laga ciyaaray laba kulan ayaa semifinalka laga ciyaaray Aston Villa waxay gurigeeda 2 gool iyo gool kaga adkaatay Leicester City sidaas ay finalka ku tagtay halka Manchester United Man City ay ka adkaatay balse goolal farqiga goolasha ay Manchester ku hartay finalkan waxaa isku wajihi doona naadiga lagu magacaabo Aston Villa iyo waliba Manchester City waxaana xusad mudan in Manchester City ay sanadkii saddexaad oo xiriir ah ay tigsanayso finalka Carabao Cup walibana ay difaacanayso sanadkan waa tahay daawadayaal halkaas kaga talaabno koobka Carabao Cup markaan waxaynu aadi doonaa kulankii baaqiga ahaa oo ay Liverpool ciyaartay maxaa natiijo ah oo ka soo baxay Liverpool ayaa rikoor cajiib ah dhigtay xilli ay garaaceen West Ham United Reds ayaa 19 dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka Premier League Liverpool ayaa 19 dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka Premier League kadib markii ay 2 gool waxba ku dubteen kooxda West Ham oo marti loo ahaa waxayna kaabiga ku hayaan in loo caleemo saaro koobka horyaalka Reds ayaa rikoor cajiib ah u yaalay tan iyo 125 sanadood ka hor jabisay xalay iyagoo ka wada badiyay dhammaan 19 kooxood ee ay isku arkeen horyaalka xilli ciyaareedkan West Ham ayaa ahayd kooxda kaliya ee u harsaneed inay ka badiyaan maadaama uu kulankoodii horay u baaqday kalaabul kaabka Liverpool soo ciyaaraysay xilli ciyaareedkii 1895-96 ay Liverpool garaacday koox kasta oo ay iskaga hor yimaadeen xilli ciyaareedka waxaanay xalay barbareeyeen rikoorkaas qaybtii hore ee ciyaarta Liverpool ayaa ciyaarta iska haysatay laakiin waxay u baahnaayeen rigoore si ay hogaanka u qabtaan ciyaartii ka socotay London Stadium Issa Diop ayaa xirada ganaaxa dhexdeeda ku lagday David Origi garsoore Kevin Brand ayaa tilmaamay gool kulaad waxaana u soo istaagay oo gool u sarifay Mohamed Salah waxay ahayd goolkii 16aad ee uu Mohamed Salah dhaliyo xilli ciyaareedkan Liverpool ayaa halkeeda ka sii waday
hanjabaadii ay u hanjabaysay West Ham qaybtii labaad iyadoo goolhaye Fabianski uu fursad dahabi ah ka beyniyay Robertson laakiin waxa uu badbaadin waayay goolkii Oxlade-Chamberlain ee yimid daqiiqadii 52 kubadda rogaal celis degdeg ah oo ay qaadeen Liverpool ayaa waxa kubadda helay Mohamed Salah oo kubadda u sii hordhigay Alex Oxlade-Chamberlain kaasoo isna shabaqa dul dhigay goolkii sida hadiyad ahayd oo u siiyay Mohamed Salah ciyaartana waxay noqotay 2 gool iyo waxba sidaasna waxa ku soo dhamaatay ciyaartii u dhaxaysay Liverpool iyo West Ham 2 gool iyo waxbana Liverpool ayaa ku awood roonaatay marka Liverpool sheekadeedu waxay maraysaa waxba laga qaban karo 19 dhibcood nin horyaal xilligan ku qabtay waxba laga qaban karo kulankii u baaqi hayna xaliye badiyeen 19 dhibcood nadiif ayayna ku qabteen waxayna ku dhow yihiinba in horyaalka kulamo fara badan asigoo ka dhiman yahay in loo caleema saaro waatay daawada markana waxaynu gudagali doonaa ka sheekeynta koobabka maxalliga ah ee laga ciyaaro horyaalada Bundesliga Faransiiska Italia iyo Isbaanishka markana daawadayaal waxaanu ku hormari doonaa horyaalka Spain koobka maxalliga ah ee laga ciyaaro ee Copa del Rey waxaanu ku hormari doonaa kulmada natiijooyinka sida ay u dhaceen waata hadii aynu u gudgalno kulmadii Copa del Rey Tenerife iyo Athletic Bilbao is wajahay waxay ku dhamaatay ciyaarta 3 gool balse gool kulaadyo ayaa ciyaartaas la dhigay 4 gool iyo 2 goolna Athletic Bilbao ayaa ku adkaatay Calderal Leonisa iyo Valencia ever ay isla dhaaf waayeen gool kulaad 4 gool iyo 2 gool Valencia ayaa ku adkaatay Rayo Vallecano waxa labi ever kaga adkaatay Villarreal halka CD Badajoz 3 gool iyo 2 gool guuldara ka qaatay Granada Real Zaragoza 4 gool iyo ever Real Madrid ayaa kaga adkaatay Real Sociedad 3 gool iyo gool Osasuna ayaa kaga adkaatay kulamadaas waxay ahaayeen kulamadii laga ciyaaray xalayto Copa del Rey waxa laga ciyaari doona 2 kulan oo qura Barcelona iyo Leganes is wajihi doona Mirandis waxay soo dhaweey doontaa Sevilla sidaas ayaa loo ciyaari doona isla caawasana labadaas kulan ayaa ka dhiman hadii aynu markaana eegno Copa Italia asna 2 kulan oo qura ayaa laga ciyaaray quarter finalkiisa AC Milan 4 gool iyo 2 gool Torino ayaa kaga adkaatay Inter Milan waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Fiorentina hadii uu gudagalno dhankay waliba horyaalka Faransiiska koobka laga ciyaaray ee Copa de France Belfort ever waxay isla dhaaf waayeen Montpellier gool kulaad 5 gool iyo 4 gool Montpellier ayaa looga adkaaday Angers waxa 5 gool iyo 4 gool kaga adkaatay Rennes halka Limoges 2 gool iyo gool guuldara ka qaadatay Dijon Monaco waxa ka badisay Saint-Étienne Ibnal waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay Lille halka Pau FC ay 2 gool iyo ever guuldara ah ka qaadatay PSG Olympic 3 gool iyo gool waxay kaga adkaatay Strasbourg halka kula ee dhimana ayaa la ciyaari doona Nice iyo waliba Olympic Lyon ayaa iswajihi doona hadii halkaas kaga talaabno Copa de France markaan waxaynu eegi doonaa koobka laga ciyaaro horyaalka Germany ee lagu magacaabo DFB Pokal naadiyaasha waaweynka ayaynu si gaar ah u fiirin doonaa naadiga Bayern Munich waxay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga lagu magacaabo VTL Bochum si lamid ah Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach ayay 2 gool iyo gool kaga adkaatay RB Leipzig waxay xasuuqday oo 6 gool iyo gool ay kaga adkaatay Wolfsburg ayay kaga adkaatay naadiyaasha waaweyn Jarmalka ayay kuwaasi ahaayeen daawadayaal qeybaheena dambe ayaynu isla soo gaarin gordhow waxaynu idin soo gudbin doonaa kulamada toddobaad soo aadan laga ciyaari doono horyaalka English Premier League iyo waliba saacadaha la daawan doono haduu eebweyne yiraahdo waatay daawadayaal markaana waxaynu eegaynaa kulmada maalinta Sabtida laga ciyaari doono horyaalka English Premier League kulanka ugu horeeyay waxa uu dhexmari doonaa Leicester City ayaa garoonkooda ku martiqaadi doonta Chelsea 9:00 xilliga Afrika halka AFC Bournemouth ee Aston Villa soo dhaweey doonto Watfordna waxay martiqaadi doontaa Everton Newcastle waxay soo dhaweey doontaa Norwich City West Ham waxay soo dhaweey doontaa Brighton Liverpool waxay martiqaadi doontaa Southampton Crystal Palace waxay soo dhaweey doontaa Sheffield United dhammaan kulamadaasi 12 xilliga Afrika ayaa la wada dheeli doona kulanka kale uu dambeeyay habeenka Sabtida
waa Manchester United oo garoonkeeda 2-0 ku martiqaad doonto naadiga Wolves. dhanka kale maalinka Axad waxaa la ciyaari doonaa 2 kulan oo kamid ah horyaalka English Premier League. Burnley waxay soo dhaweey doontaa Arsenal halka Tottenham ay martiqaad doonto Pep Guardiola naadigiisa ee Manchester City. dhammaan kulamadaasi Axad iyo Sabtiga ayaa la kala ciyaari doonaa daawadayaal. gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena isla soo gaarnay. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. حب الرياضة والملعبة ومهما لعبت فلن أتعبا